shirkadda maalgashiga sarifka lacagaha online-ka ah ee markaasi la yiraahdo Barako ayaa maanta waxay dadkii bishii hore shirkadaasi maalgashaday ay siisay lacagihii faa'iidada ahaa. warkaasan jawhar waxa ka soo diray Ibrahim Ali Nuur. shirkadda maalgashiga ee ku shaqeysa sarifka lacagaha online-ka ee Barako xarunteeda magaalada Jowhar ayaa maanta muddo bil ah kadib dadkii maalgashtay shirkadda waxay siisay lacagihii faa'iidada ahaa oo shirkaddu ay ka heleen. maanta oo ah maalinimo khamiis ah xarunta shirkadda Barako waxay ahayd mid mashquul badan maadaama ay soo buuxdhaafiyeen tiradada kuwaas oo saf dheer ugu jiray qaadashada lacagahooda faa'iidada. qaar ka mid ah bulshada reer Jowhar ee maanta shirkadda Barako lacagaha ka qaatay ayaa sheegay in shirkadda ay siisay faa'iidada 40%. waxaan joogaa saakay xafiiska Barako online trading xafiiskeeda Jowhar in February ayaa waxaan dhigtay lacag 500 ah anigoo markaas tijaabinayo. maanta ay tahay 12 Maarso way ii yeereen waqtigii balanta ka hor 2 maalin ay ii yeereen iyadoo balanta ay ka dhineed 2 maalin. alxamdulillah waan helay lacagtayda. Barako waad ka gaarto waxaan dhigtay lacag oo 1200 markaan dhigtay intaysan beertaydi baslaan anya la soo wacano beerta dhex joogo alla yiri kaala Barako imaad marka Barako waxaan leenahay maad wax ka gaarto wuxuu dhamaan Allah oo dhamaystiro hadii beerta ka soo go'dane waxaan ku talagalaynaa aan ku tala jiraa shakhsi ahaan wixii beerta ka imaahayo inaan Barako agkansado. reer Jowhar ama maalgashiyaalka ama kuwii barabagaanayo baqay dhammaan waxaan u sheegaynaa shirkadda Barako maalintii ugu horeysay sidii ay u ballan qaaday ay ku bixiyeen. Barako waa u jeedin shirkad jirta waaye waxaan dhigtay $2,000 waxa la siiyay $800 ma sha Allah waxa waaye jiifkaada baarta jiifkaada ku jaqo waaye. dhinaca kale maamulaha shirkadda Barako online xarunteeda magaalada Jowhar Ibrahim Hassan Barxu ayaa sheegay shirkadda Barako wali inay wado lacag qabashada dadka doonaya shirkadda inay maalgashtaan. waxa sharaf noo ah dadkii Soomaaliyeed gaar ahaan dadka reer Jowhar in lacagtii ay maalgashteen aan siino isbuuci ugu horeeyay faa'iidadoodii. waxa kale oo sharaf noo ah in aan dadkii aaminsanay in shirkaddan shirkad weyn oo gobolada dalka ka shaqeysa ay tahay xarumo badan ku leh degmooyinka sida Garoobe, Gaalkacyo, Cadaado, Dhuusamareeb, Gurceel, Beledweyne, Jowhar, Baydhabo xarunteeda weyn ay ku taalo Muqdisho gaar ahaan kilomitir 4 amba number 4 sida ay dadka u yaqaaniin. shirkaddan waa shirkad aad u xoog badan oo saami weyn hayso dadka Soomaaliyeedna ugu shaqeyso qaab islaamiya. waxaan dadka reer Jowhar markaa ugu bishaareynaa in ay shirkadda wali ay sii wado lacag qabashadii dadka reer Jowhar. waxaan leenahay soo dhawaada shalay wixii aan ballan qaadnana waan fulina maanta marqaatina waxa ka tihiin in aan bixinay lacagtii faa'iidooyinka ahayd. shirkadda Barako ayaa ka mid ah shirkadaha ugu caansan dalka Soomaaliya ee ku shaqeeya sarifka lacagaha online-ka ee loo yaqaan Forex. Ibrahim Ali Nuur, TV Universal, Jowhar.